يا رب صل على النبي وآله ما فاض نبع بالجداول أو جرى. يا رب صل على النبي محمد ما شج جرح في سبيلك وانبرى. صلوا على المختار أحمد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أصحابتك وحرن جنالك ماشيل ميديا عندما أنتم وحن الله رمضان كريم inkastoo aan aad iyo aad kala soo daahay mawduucana maanta waxaan kaga hadlaynaa qaybtiisii toddobaad ee mashruuca dagaalanka nuurka. waxay inoo mareysay shirka waxaan u sii dhaafay London oo aan ku soo qaatay bil nasasho ah. markaan soo dhaafay ayaan cagti soo galiyay xarunta ururka. waxay igula kaftameen in Soomaalidu tahay dad adkaysi badan oo asal ah oo ay adag tahay in la bedelo dhaqankooda iyo diintoodaba. wuxuu ii sheegay waqtigii gumaystaha in ay yimaadeen Afrika oo inteeda badan ahayd Muslim, haddana si dhib yar ayaan ku doorinay. Soomaalida dhowr qof mooyaane waan ku guuldaraysanay inaan dhaqankooda iyo diintooda marin habaabino. kulan sanadeed kasta waxaanu keennaa 7 ilaa 9 khaniis, mid ama 2 ayay ka gartaan oo ay ku furaan buuq yar oo aan ka badnayn 3 casho. marka dambe sida xumbada ayay iskaga degtaa buuqaasi. annagu hawshayada ayaanu iska wadanaa. khaniisnimada iyo qowmuluudnimada waxaanu uga dan leenahay waa in aanu ubadka soo koreeyo uga dhigno tusaale ay ku daydaan. kulamo hoose ayaanu ugu diyaarinay inay dhallinyaradu kula hadlaan, waxaana ay u jeediyeen hadallo u badan dhiirigelin ay dhallinyaradu ku furayaan in ay jebiyaan derbiga dhaqanka ah iyo fikirka duugga ah ee ay aaminsan yihiin. waxaan ay yidhaahdeen dib u socodnimadu waxa ay ku beerlaxawsadeen maskax furnaada oo aqbala waxa cusub. qof 2 ilaa 3 waanu doorinay ilaa hadda, waxaase aanu khaati ka taagannahay dhowr wadaad. beerga ayaa habeenkii dambe kula kulmay isagoo ku jira martiisa Skype-ka. cabaar ayaanu isxaal waraysanay. markii dambe ayaan u sheegay waxa naga haysta wadaadada caqabadaha ku ah mashruucayaga. beerga isma uusan dhibin. waxa uu yidhi kuwa laambadoodii way bakhtiday ee ha ka baqanina. waxa uu yidhi waxaanu nahay qoom sahan dirta marka ay dan leeyihiin iyo mar kasta oo ay dalku duulayaan. wakhtigii aanu qorshaysanay inaanu dumino khilaafada islaamka ayaanu sahan u dirnay nin oday ah oo caqli badan. waxa uu safarka ugu baxay caasimadda islaamka ee Qustandiniya. intii uunan gelin magaalada ayuu kula kulmay caruur duleedka magaalada joogta. mid ooyaya ayuu ku yidhi adeer maxaa kugu dhacay oo aad la ooyeysaa? waxa uu ugu jawaabay 10 leeb ayaan ganay oo mid ayaan la waayey halkii aan shiishayay. odaygii waxa uu ku yidhi 9 baad la heshay maxaad la ooyey? wiilkii yaraa ee muslimka ahaa ayaa waxa uu yidhi umaankaa 10aad ee aan la waayey waxaa ka badbaaday cadowga islaamka, taas baan ka ilmaynayaa. halkii buu odaygii sahankii ahaa ku soo noqday oo sheegay in aanay dhoweyn xilliga la qabsan lahaa khilaafada islaamka. isla odaygaas waqti dambe waxa uu ku soo noqday. sidii si la mid ah ayuu arkay wiil yar oo ooyaya. markuu weydiiyey waxa uu ka ilmaynayo, wiilku waxa uu sheegay inuu waayey gabadh uu jeclaa. markaas ayuu sahankii noo sheegay in la gaadhay wakhtigii la dumin lahaa khilaafada islaamka. sidii baanu annagu ku burburinay ilaa magaceeda la waayo cid soo qaadaba. waxa uu igu daray in wakhti dhow kooxo gaalo ah ay ku sheegeen culimada islaamka. waxa ay soo mareen dhowr waddan oo islaam ah, cid garata ayay waayeen. markaas ayaanu garanay inuu bakhtiyey laambadii dunida muslimka u baxaysay. hadda waxay jecel yihiin wax badan oo saamayn ma lahan ee ha u joojin, ayuu si cad iigu yidhi. waxaan weydiiyey bal inuu kuwii hore iga warramo. beerga waxa uu igu yidhi wakhtiga ayaa igu yar,
nimankaas waa xoogga aan ka nasan weynay wakhtigii aan doonaynay inaan sixirka ka soo saarno Masar. Diyaaraddii siday sixirka ayay si lama filaan ah ugu dhacday Siinaay, waxaan garan weynay waxa soo riday diyaaraddaas. 30 sano kadib, annagoo dhacdadan baadhayna ayaa magaalada Sharmashiikh oo nin kuwii hore ah ka mid ah noogu sheegay inuu diyaaraddaas soo riday wadaad Soomaali ah oo ducadiisa ka adkaatay sharkii aan wadnay. Wuxuu beerga sidoo kale iigu xaqiijiyey in ururka dhexdiisa ay kor u kacayaan awoodda xubnaha xag jirka ah ee doonaya inay Soomaalida la wareegaan 2020. Waxa uu yidhi Erdogan ayaa 2011 shimbir u noqonaya Soomaalida, asagoo si fudud ku kala daadiyey qorshihii u degsanaa. Haddase damac lagama doonayo in Soomaaliya dib loo qabsado. Rag baa miiska soo saaray, waxay doonayaan in ay dunida tusaan in Soomaalidu soo celin kari weydo amnigii oo ay hanan weydo dowladnimada. Ee lagu qanciyaa ummadda ilbaxnimo ah in Soomaalidu isku talin weydo ayna habboon tahay in loo taliyo. 60,000 oo askari oo UN-ta ah ayaa hawshaas loo diray marka loo baahdo in qorshaha la fuliyo. insha Allah waa inoo qaybta 8aad ee mashruuca la dagaalanka nuurka.